ee aanu kaga hadlaynay taariikhda Soomaalida. Aadan militariga haddaba talada la wareegay bishii Oktoobar sanadkii 1969 mucaaradadii ugu weyneed ee xagga shacbiga ka timaada waxay ka dhalatay xeerkii qoyska oo golihii sare ee kacaanku ay soo saareen bilowgii sanadkii 1975. Tallaabadaasi waxay keentay in culimadii diintu ay ka hadlaan sida xeerkaasi qoysku uga soo horjeedo diinta islaamka oo ummadda Soomaalida boqolkiiba boqol la oran karo way aaminsan yihiin. xeerka qoyska oo ka hadlayay sinaanta ragga iyo haweenka marka ay timaado xagga dhaxalka. Didmadii ay wadaadadu dideen waxa ay tilmaameen in xeerkaas uu ka soo horjeedo aayadaha Quraanka. Waxa kacaankii dalka haystay ay u dileen taas didmadii ay diideen 10 wadaad 23 kalena waxa lagu xukumay xabsi dheer. inta aynan haddaba khudbadii dhibaatadaasi ay ka dhalatay ee ujeediyey Maxamed Siyaad Barre aynaan gudagelin afgembigii uu hogaaminayay markii talada ay qabsadeen bishii Oktoobar sanadkii 1969 mowqifkii xagga diinta ma muujiyeen mise may muujin ama halkay ka taagnaayeen maxay ahayd. waxaanu qadar imaka dhageystayaal idinka maqashin doonaa Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlayay arrimaha xagga diinta khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo markii talada ay la wareegeen. waxa khudbadaasi uu jeediyey 23 bishii Oktoobar sanadkii 1969 waxaana guud ahaan uu kaga hadlayay ciidamada talada qabsaday waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyadoona diintuna ay ka mid ahayd. waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal shaqo ku dhisan, inaanu dadkii ka dhigno dad sharciga u hoggaansan oo cis iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso, hay'ad iyo hay'ad ahaan ay ka dhaxayso, caamiyadana ay ictiqaadsan tahay in lagama maarmaaya. waxaanu doonaynaa inaanu ku tillaabsanno laalooshka inaan baabi'ino, waxaanu doonaynaa inaan ku tillaabsanno qarabakiilka inaan baabi'ino, waxaanu doonaynaa inaan ku tillaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'ino oo laynaga soo galayay oo ajnabigu markay rabaan inay nahaleeyaan ay ku tiirsan jireen oo sabab ka dhigan jireen. adigu qabiilkeed tahay, adigu xaggee ku dhalatay, adigu muxuu ahaa kaafee tahay, hebel ma waxbaa isu tihiin, hebel waxbuu kaa sheegaa, maxaa sababteed u tahay, inuu idinka kormaru rabaa, inuu idinka hoosmaru rabaa, wixii ay kici jireen nimankii gumaysayaalka ahaa oo haatanna musawirkooda beentuuna nala joogo maskaxdooda iyo caqligooduna meel kale uu ku dhisaasanya. inaanu baabi'ino oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga laftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weynna ay barbar ku raacdo, kuwa waxaas miskiinka ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xirro, dadkoodana ay u muuqdaan kuna coodayno. waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu hore u kaco, in shacbiga Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hore u kacdo. waxaanu doonaynaa inaanu dhalinno qoomiyadda la yidhaahdo Soomaali, la yidhaahdo midnimo, la yidhaahdo wax wada qabsi, la yidhaahdo wada noolaan inay dhalato. waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo afmiishaaraynta iyo beenta iyo sabidaadda iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo aakhire iyo adduunba ku foolsan. waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysanno oo la haleeyey oo loo bandhigay nin kastaaba inuu ku cayaaro, inaanu xoogga aanu haysanno ku gees istaagno oo diintu ay quwi noqoto, bacdana ay tahay gundhigii sharciga Soomaaliyeed ay tahay. hadalkaasi waxa uu ahaa khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyey Maxamed Siyaad Barre. haddaba markii golihii sare kacaanku uu soo saaray xeerkii qoyska ee sababtiisa wadaadada lagu laayay bishii January ee sanadkii 1975 waxa Maxamed Siyaad Barre uu jeediyey khudbad uu dadka ugu sheegayay golihii sare kacaanku go'aanka ay qaateen. khudbadaasina waxay ahayd: waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin, in halka ay isaga xaq yihiin. waxaa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar keliya ka tago haawey aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan. haddii taasu dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay korigeed leedahay ee wax kale ay ka qaadaynin. waxaa jirtay in maxaa la oran jiray rubuc walthuluth walkhaamis waljinni. ma jirto taasu. labada qof waa isku mid, waa isku xaq, waa siman yihiin. xuquuqda muxuu ahaa mujtamaca ama waalidkooda ay ka dhaxdaanna waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda Soomaalida ah mana kala hooseyso. taasu isla markii waxay fariisinaysaa
in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenka ee isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa markaas bal hadda aynu taana ku qotomino hore u dhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka dad aynu inagu rukunkii ugu horreyn saas ku xabaalno waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxdu ay ka hadlaysan tahay inayna soo raacaan oo dadka aadamiga xaqiisa inay simaaneen rag iyo dumarba inay simaan baan ka rajaynayna maxaa waxay addoonnimaa jirtay addoonnimadii jirtay si loo baabaasho addoonnimada waa in la baabaashaabay diinta haddaan addoonnimo jiri lahayn addoonnimo kama muuqateen kitaabkeenna kama muuqateen haddaan hore usoo kaco weliba haweenka iyo ragga sulud iyo rubuc maxaa keenay waa furuda waxa keenay gabdhaha markay dhashaan waa la xabaali jiray wuxuu ninka badowga ahaa ee waaga xarabkaa jooga ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb kuu keenahayd ha dhimato caqligooda iyo rusaasku ku socon jiray diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo ama midkii xoreysmi kara markaasba in tartiib loo xoreeyo maalinba hayad la soo dejiyo maalinba tilaabo la qaado ilaa muxuu ahaa hataad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan 50% wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen aayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo garabkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay waxaan rajaynayaa inay qoladiina hor fadhidaa iyo soomaalida kaleeto iga maqli doontaa baalkan ee microfonka haddaan hor taagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmi yaraha qur-aanka duleeyaha muxuu ahaa islaamka halleeyaha inay saas u sheegaanin waa gar in aad ila yaabtaan waa gar maxaa wacay waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin anna haddaan idinku shubay wallahi anaa idin fiican iyo bilah waa kitaab kaamila wallahi naseexanaa idina waxay idinku shubeen waa beento qaraaba idinla ma ahayn beshiina dan kama lahayn wadankiina dan kama lahayn sharafkiina dan kama lahayn ummadnimadiina dan kama lahayn inaad xifataan iyo xorood midna iyagu muraad kama lahayn dantooday wataan waxay ruuxooda weligood inay tooda idinku daafacaan laakiin diyaar baanu ahay taanada inaan daafacno naftiisagaba naf kala ma kalkaalo markaan anagu teenna hanano ayaynu dadkala waxtari karnaa marka hadalkaas ujeedaydu waxaa weeye war mukafilnimo waktigeed gudub waxaynu dhignay soomaaliya 75 ama 78 dhawaad baa maanta wax qori kara marka masibraar baan weligan ahaanayna roog falad iyo muxuu ahaa gulad bin culeyd oo laba taajira weliba xoolada daafacaya miyaa anagu xaliil u ahaanayna oo beenta dhigaan baan dhigayna oo marka wax alla wixii aynu wax ku qabsan karno oo ama fikradda ama farsama miyaa laynaga seexinaya alla ma yeelayna bas gaajaysan 10 maalmood qabay iyo diinka yaqaan hadday naagtay dabadii rabanaysa maxaa waxay noloshu waa xal inay noolaato taasi waxayd khudbaddii uu jeediyey maxamed siyaad barre sanadkii 1975 markii la soo saaray xeerka qoyska waxaana xeerkaasi lagu beegay sanadkii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ugu tala gashay inuu noqdo sanadka haweenka dhegeystayaal imakana waxaanu idin maqashiin doonaa aayadaha qur-aanka ee ka hadlayay dhaxalka xagga qoyska ee wadaadadu ay markaasi ku doodeen in uu madaxweynuhu ka been sheegay kadib marka aad dhegaystaan aayadaha qur-aankana sheekh maxamed macalin oo ka mid ah wadaadada diinta sida xooggala u yaqaan aadna dadka soomaaliyeed u yaqaaneen ayaa aayadahaas dardaarmaya fii awlaadikum fii sha'ni awlaadikum awlaadiina aad dhashaan sha'nigoodu idin dardaarmaya isaga xaquun idinka jecel yacni bani aadamka fiiri awlaadi adigu aad dhashaan lagu dardaarmaya ilaahay kuu dardaarmaya yacni ilaahay siduu khalqigiisa yacni u jecel yahay siduu ugu roon yahay awlaadaad dhashay ee adigu kaa soo go'day iyaa sidaad ula macaamaloon lahayd baa lagu dardaarmaya oo lagu leeyay sidaa iyo sidaasi haddii kale adigu lagu daayo waxaa suura inaad qaar qarisid yaa dhici karayso kolka ilaahay baana ogolay dardaarankii waa maxay lidakari kan lab waxaa u sugnaaday midla xadil unfayayni laba dhedeg dheeftooda u sugnaatay laba dhegedeg intay qaadato iyo ninkii qaadanaya haddii meesha ninka oo ka tegay wiilal iyo gabdho wiilkii laba gacmood buu leeyahay idan gacan bay leedahay فإن كنا هدي هذا يعني عروسة اللي بتجي نساء هذا هدي هذا ناقها فوق 2 لبئي وحكة بدنعة هدي هذا فلهن ناقها سحب لها سوحي ليين ثلثا ما ترك ميتك وحو كتجي لبريش ثلث بيليين منك وحو كتجي وعدنتي
laba gabadhood iyo wax ka badan buu ku tegi waxay leeyihiin maalka markii 3 loo dhigo laba gacmood bay leeyihiin wa in kaanat haday ahaato gabadha oo ku tegi waahidatan mid haday ahaato ninkii waa balinto hal gabar buu ku tegi falaha iyada waxa u sugnaaday an nisf bay leedahay maalku nuskiisa qaadanaysa wali abawayhi maydka dhintay labadiisa aabo waxa u sugnaaday hooyadii aabihii waxa u sugnaaday likulli waahidin mid la arko oo minhuma labada aaba kamida waxa u sugnaaday as-sudus meeshii lixaad iyo u sugnaatay mimma kii xaqiiba ugu sugnaatay taraka oo ku tagi nin baa dhintay labadiisa aabo ku tagi aabihii hooyadii ku tagi mid walba aabihii hooyadii mid walba wuxuu leeyahay sudus iyo leeyahay meeshii lixaad waas goorma in kaan haduu ahaaday lahu meydka dhintay waladun haduu walad u yahay nin baa dhintay caruur buu ku tagi ama gabdhaha ahaadeen ama wiilha ahaadeen wuxuu dhalay buu ku tagi aabihii hooyadiina waa ku tagi aabahay hooyada waxay leeyihiin maalka mid walba meel lixaad baa laga siinaa mid walba meel lixaad ayay ku leeyihiin maadaama isaga awlaad uu leeyahay fa in lam yakun haduunan ahaanin lahu maydkii waladun walad haduun u ahaanin oo warisahu ay dhaxlaan abawaahu labadiisa aaba kaliya ay dhaxlaan fali ummi hooyadii waxa u sugnaatay as-sulusu meeshii saddexaad wuu dhintay caruur ma laha aabihii hooyadii buu ku tagi aabihii hooyadii iyo ku tagi hooyadii waxay leedahay meel lixaad iyo leedahay inta kale waxba kuma laha aabahana iska qaadanay midna waa nasiib midna waa casab kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed macallin oo sharax ka bixinayay aayadahaasi qur-aanka haddaba cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka oo barnaamijyadan aanu si weyn ugu soo xiganayno ayaan wax ka weydiinay go'aankii xeerka qoyska iyo wixii uu kala kulmay madaxdii waddamadii carbeed markii loo diray inuu ka soo qanciyo go'aankaasi ay qaadatay dowladdii militariga ahayd ugu horraantii waan rabaa inaan kuu sheego horta anigu inaanan goobjoog ahayn oo dalkaba joogin markii qaanuunkaa la keenay ama la ogolaaday ama wadaadada la dilay waxaan jiray qaahiro baan jiray waxaan soo saxeexayay waxaa la yidhaha alwuxda aliqtisaadiya alcarabiya ama midaynta dhaqaalaha carbeed wax la yidhaha markii aan ka soo baxayna waxaan ku maqlay arrintani anuu sanca joogo oo yeman sii marayo ayaan ku maqlay markiiba taar baa lay soo diray degdeg usoo galay leeyahay ayadoo lay odhanayo waxaad hogaaminaysaa wafdi oo haddana dalalkii islaamka oo shirku qabo waxaa jiray shirweynaha culamada muslimiinta wax la yidhaha oo markaa laga sheegay baytulmaqdes ayaa waxaa lagu qabanaya baghdad marka muctamar culamaa almuslimiin waxaa kasoo qeyb galay wasiirada awqaafta ama diinta ra-iisul wasaarayaal qaarkood rag badan oo barlamaan ku jiro maalintaan galay maalin saddexaadkiiba haddana aan soo dhoofay waxaan isku dayay inaan mataqaana adigu ka galgasho oon idhaa war arrinta tan anigu ma daafici karayo mana qabin horena marar badan baa la isugu dayay in la keeno laakiin waa la diidanaa waanu diidnay arrintaas kuma aanan guulaysan aakhritaankii inaan wafdi hogaamiye ayay noqotay markaan inta kuu sheego wanaag fara badan kalama aanan kulmin maxaa yeelay shirkii nafsadiisu waa cambaaray horta mataqaanaa soomaaliya anigu kulley meesha hadal baan ka jeediyey laakiin hadalkaaba ma noqon karayo midku difaacayo wuxuuse noqon karayaa mid uu dhexdhexaad aho war adduunka uga sii darinaha marka waxyaaba la difaaci karaya maanay ahayn madaxyaalka qaarkood anay naba qaabilinba sida anwar saadaad allah u naxariiste ixtiraam ahaan waan ixtiraamay cabdullahi kooga waa safiir meesha ka ahaa guri la yidhaaha qasrul curuuba oo 2 maalmood ka hor boqor xuseenkii dhintay allah u naxariistay isaguna adduunka wada dhamaaday uu ka baxay boqoradii madaxweyneyalka lagu soo dejiyey ayuu aniga igu dejiyey wafdigiina guryo kale ayaa la geeyey laakiin waradiinu naga qaado ayuu diiday haddaba dhegaystayaal diidmadu kuma koobnayn madaxweynihii hore ee waddankaasi masaarda anwar saadaat oo qura ee waxaa jiray madax kale oo carabeed oo ka cadhootay xeerkii qoyska ee milatarigii soomaaliya qabsaday ay soo rogeen iyo dilkii la dilay wadaadadii sheegay in xeerkaasu uu xadgudub ku yahay diinta islaamka sida cismaan maxamed jeelle uu noo sheegay waddan kale oo carbeed ayaa isna boqorkiisu uu diiday inuu la kulmo inkasta oo markii dambe laysku noqday oo lala kulmay cismaan maxamed jeelle ha inoo sii faahfaahiyo habeenkay dib isugu noqdeen oo waana noo galay isagoo waxba kala odhan warqadiina intuu qaaday meel iska dhigay sidii waxaan astaahilin la akriyo ilaa waxay ka hadli buu sii ogyahay kumuu ahaa boqorkaasu allahu naxariisto boqor faysal u ahaa markaad dhinac iska dhigto dareenkaasi dalalka muslimka ay qaateen ka sokow
inkastoo dii sheegtay adigu inaad goob joog ahayn markii go'aanka la qaadanayay wadaadada lagu dilayo maxaad ku warqaadatay golihii mayay isku wada raaceen mise sidii hanti wadaaggaa la isku diidanaa saan kuu sheegay horaba waa loo diidanaa qaanuunka waxaa jiray shir kale oo shirka culamada islaamka aan kuu sheegay bagdaad ka dhacayay reer socday oo la yidhaah shirkii haweenka adduunka oo mooska ka dhacayay marka waxay ii sheegeen in guddi loo saaray guddigaas oo madaxu ahaa maxamed sheekh cusmaan oo hadda weli joogo markaan warsaday maxamed sheekh waa lihi maxaa say wax u dhaceen wuxuu ii sheegay inay tala ku bixiyeen inaan loo baahnayn qaanuunkan wax muraadahoo maanta annaga naga hallaabaynayna jirin wuxuu naga bi'iyo mooye xataa wuxuu ii sheegay in hablo ku jiray shirka oo ay ka mid ahayd faadima axmed caalin cureyo inay diideen in la yidhaah aayadihii ilaahay ayaa haweenka dartood loo bedelay dib ayaynu ugu soo noqon doonaa arrimaha Soomaaliya hase yeeshee haddii aynu u baydhno dhinaca Jabuuti bishii Noofambar ee sanadkii 1974 ayaa doorashooyin ka dhacay waxa maamulka xoog ku yeeshay mujtamaca Cafarta xisbigii la odhan jiray LPAI ayaa isaguna rasmi ahaan waxa uu noqday xisbiga mucaaradka waxaa jiray jabhad kale oo mitida oo marka magacooda la soo gaabiyo la odhan jiray FLCS oo iyaguna saldhigoodu ahaa magaalada Muqdisho bishii May ee sanadkii 1975 ayaa xisbigaasi dad taageersani waxay afduubeen danjirihii Faransiiska ka joogay magaalada Muqdisho falalkii kale ay ku kaceen waxa ka mid ahaa bishii February ee sanadkii 1976 ayaa waxay afduubeen gaari basa oo siday caruur ay dhaleen ciidamadii militariga ahaa ee Faransiiska ka fadhiyay Jabuuti waxaana ay ku xidheen siideynta caruurtaasi in shuruud la'aan xorriyad lagu siiyo Jabuuti hase yeeshee waxba kamay suuroobin waayo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ay ku qaadeen waxa ay ku soo furteen caruurtaasi iyadoo dadna ay ku dhinteen haddaba bishii Disembar sanadkii 1975 ayaa kadib markii uu kulan dhex maray Cali Caarif Burhaan oo madax ka ahaa Jabuuti iyo madaxweynihii Faransiiska ee waqtigaasi Gaskard waxa la isla gartay in Jabuuti ay xornimo qaadato Faransiiskuna uu saldhigood halkaasi ay ku sii lahaadaan xagga militariga bishii March ee sanadkii 1977 ayaa wada hadallo lagaga hadlayo xornimada Jabuuti ay ka dhaceen magaalada Paris bishii June 27keedina Jabuuti waxa ay qaadatay xornimadeedii waxaana madaxweyne ka noqday Xasan Guuleed Abtidoon ra'iisul wasaarana waxa ka noqday Cabdalla Maxamed Kaamil waqtigaasi ayaa jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay noqotay wadankii 49aad oo ka mid noqday ururka midnimada Afrika iyo wadankii 22aad ee ururka Jaamacadda Carabta barnaamijkuna maanta dhegeystayaal halkaa ha inoogu joogo